dad caan ah oo ka soo jeeda maamulka Somaliland oo si weyn uga qayb qaatay dabaaldega kowda Luulyo iyo maalmaha xorriyadda Soomaaliya. Haddaba dadkaasi ma Somalilandnimadoodii ayay ka tanaasulayaan mise waxa ay ka tahay Soomaali jacayl oo walaalahood ay farxadda la qaadanayaan? Aan isla aragno. Qofka koowaad ee caanka ah ee ka soo jeeda Somaliland oo haddana ka qayb qaatay dabaaldega maalmaha xorriyadda Soomaaliya waxa uu noqonayaa fanaanka caanka ah ee lagu magacaabo Nimcaan Hilaac. Si uu uga qayb galo dabaaldegana waxa uu imaaday magaalada Muqdisho. Waxa uuna qaaday hees uu ugu tala galay maalinta xorriyadda. Sidoo kalena jawaab u ah fanaaniintii Hargeysa ka soo qaaday heestii ahayd Itoobiyaanka iyo Amxaarada ayaa walaalaheen ah oo Muqdisho iyo Garowe ayaa nooga cadowsan. Yacni waxa la dhihi karaa heesta uu qaaday midaas ayay ka soo horjeeday oo ay jawaab u ahayd. Sidoo kale heestiis waxa ay ku saabsaneed maalmaha xorriyadda iyo dabaaldega kowda Luulyo. Waxa uuna ka qaaday goobo iyo xaflado badan oo xitaa madaxweyne Xasan Sheekh hortiisa ayuu heestiisa la tagay. Nimcaan Hilaacna qof kasta waa uu garanayaa waxa uu ka soo jeedaa maamulka Somaliland gaar ahaan gobolka Awdal. Waxa uuna ku soo caanbaxay Hargeysa xilligii uu ka mid ahaan jiray kooxdii la oran jiray Xidigaha Geeska. Sidoo kale dadka caanka ah ee ka soo jeeda Somaliland oo haddana ka qayb qaatay dabaaldega kowda Luulyo waxa ka mid ah gabadhan abwaanada ah ee lagu magacaabo Ayaan Kaaba oo horay iyaduna u tirisay maansan yar oo gaaban oo ay ugu jawaabaysay fanaaniintii Hargeysa ka soo qaaday heestii ahayd Xamar ayaa cadowgeena koowaad ah. Ayaan Kaaba waxay gacanta ku wadataa oo ay ku dabaaldegaysaa calankii buluuga ahaa ee Jamhuuriyadda Soomaaliya. Waxayna sidaas uga qayb qaadatay dabaaldega maalmaha xorriyadda ee waddanka Soomaaliya. Gabadhan ayaduna waxa ay ka soo jeedaa Somaliland gaar ahaan beesha dhexe oo ah midda ugu weyn Somaliland. Sidoo kale isaguna waxaa jira qof saddexaad oo ka soo jeeda isla Somaliland oo Soomaalida dhexdeeda caanka ah aadna loo garanayo oo isaguna si weyn uga qayb qaatay maalmaha xorriyadda iyo dabaaldega kowda Luulyo. Waana fanaanka lagu magacaabo Saalax Sanaag. Waxa uu ka qayb galay xaflad weyn oo ka dhacaysay magaalada Nairobi. Waxa uuna ka qaaday heestii uu adeerkiisa lahaa ee dhihi jirtay calankaagu waa hibo sharaf kugu hagoogan. Heestan oo ka mid ah kuwa ugu caansan heesaha loo qaaday waddankeena Soomaaliya ayuuna mar kale dib u qaaday oo waa uu cusboonaysiiyay. Saalax Sanaag isaguna waxa uu ka mid ahaa markaan ka hor fanaaniinta ama dadka caanka ah ee ka soo jeeda Somaliland. Waayahay inta markaan ogaana kadib su'aasha soo noqonaysa waxa ay tahay dadkan caanka ah ee ka soo jeeda Somaliland ma Somalilandnimadoodii ayay ka soo baxeen oo waxa ay ku doorsadeen inay qaataan Soomaali weyn mise waxa ay ka tahay walaalihiin kala qayb qaata maalmaha farxadooda iyo dabaaldegooda. Bal mid ayaan iskula fiiri doonaa xaaladaha ay ku kala sugan yihiin. Haddii aan ku bilowno Nimcaan Hilaac waxa uu ka mid ahaa dadkii ugu horreeyay ee ka gadooday maamulka Somaliland ama guud ahaanba isaga baxay. Waxaana dhacday in muddo 4 sano ka hor ah uu magaalada Muqdisho imaaday oo uu iska soo xaadiriyay oo xitaa halkaasi oo xilal dhanka sportska ka qabtay kadibna uu sii wareegay halka iyo Mareykanka. Intaa wixii ka dambeeyay waxa uu ahaa nin ku hadla afka Soomaali weyn. Gabadha abwaanada ah ee Ayaan Kaabana waa Somaliland darad oo iyadu way aaminsan tahay inay ka soo jeedo maamulka Somaliland oo ay wax ka leedahay. Haddana sidaas oo ay tahay waxa ka muuqata inay diidan tahay in Soomaaliya iyo Muqdisho loo arko cadawga koowaad ee ay leeyihiin dadka Somaliland oo waxa ay doonaysaa iyadoo dadkeeda walaashanaysa oo Soomaali oo dhan isku wadata haddana inay xorriyadeeda hesho. Waxa ku soo haray fanaan Saalax Sanaag. Waxa uu ka soo jeedaa fanaankaani Qaatumo State oo horay uga mid ahaa jirtay Somaliland ka hor intaan loo aqoonsan maamul goboleed ka mid ah dowladda federaalka Soomaaliya. Waxa uu fanaankaani raacay oo ka mid noqday dadkiisa. Haddana waa nin ka soo jeeda Qaatumo State oo waxa uu iska laabay buuggii ahaa Somalilandnimada. Waxa uu hadda xoqanaya oo ku meel maraya kaarkiisa maamul iyo midkiisa Soomaalinimo. Haddaba intaa kadib dadka caanka ah waxa la dhihi karaa waxay isugu jiraan dad ay ka soo dhamaatay Somalilandnimadoodii iyo kuwa ay ka tahay walaalihiin kala qayb qaata farxadda. Intaas ayuu noogu egyahay mowduuceenu. Waad ku mahadsantahay daawashadaada. Wassalaamu calaykum.